Noor Iftin has quite a story to tell. He grew up in Somalia, a country ravaged by civil war. Abdi Noor Iftin has a quiet history to tell. Ninka loo yaqaan Abdi Noor wuxuu hayaa xoogaa sheeka oo sheegayo. He grew up in Somalia, wuxuu kusoo barbaaray Somalia, a country ravaged by civil war, dal uu dagaal sukeeyay curyaamiyey. Erey cusub waxaa ku jira ravage oo ah burburin ama destroy baabiin. In his late 20s, through a remarkable turn of good fortune, he was able to come to the United States and settle in Maine. Ninkiina wuxuu yidhi in his late 20s, dhammaadkii labaatankiisii, s ayaa la socda 20ska oo laga wado 20ka laga soo bilaabo ilaa 21 ilaa 30 lagu gaarsiiyo ayaa la kala qaybiyaa. In waxa loo yaqaan inta hore 20 ilaa 25 ina waa inta ka dambaysa 25 ilaa 30. Marka dhammaadkii labaatankiisii oo ku beegan 28 jir 27 jir inahaas ayuu maxay ninkanu in his late 20 dhammaadkii labaatankiisii ayuu ninkanu through maray maxay remarkable turn isbedel cajiib ah of good fortune oo ah nasiib wanaagsan markaa. And he was able to come United States waxaanu awoodayay inuu yimaado Mareykanka markaa and settle iyo inuu dego Maine magaalo markaa Mareykanka ku taala oo Maine la yiraahdo. Ereyga settle iyo settle labadaba aad ku dhawaaqi karto wax loo isticmaalay degitaanka waa sida ku noolaansho oo kale. He tells this amazing story in his new memoir. It's called Call Me American, and Abdi is with. He tells you sheegayaa this amazing history sheekadan cajiibka and his new memoir iyo xusuus qorkiisan cusub. Markaa ereyga memoir waa xusuus qorka buugga yar xusuus qorka. Buuggiisan Call Me American ayaa ah xusuus qorkiisi markaa uu ka qoray noloshiisii hore. This tonight on 207. Thanks for coming in. It's great to have you here. Thank you for having me. With us tonight really halkan nala jooga caawa. Thanks for coming. Ku mahadsanid maashahaaga. It's a great to have you here. Waa wax weyn bay noo tahay inaad halkan nala joogto. Isaguna markaa wuxuu ku jawaabay thank you for having me. Ku mahadsanid soo asumitaanka soo asunteen. Let's go back to your days as a boy, a teenager in Somalia. Wuxuu ku yiri markaa let us go back to your days as young a teenager in Somalia. Wuxuu ku yiri let us go back to aynu dib ugu noqono your days maalimahaagii as a young boy aad ahayd maxay tole inay da'yar as a teenager kuna waa qofka u dhaxeeya da'da ilaa 10 jir ilaa 20 jir ee dhowr iyo 10 ayaa loo yaqaan teenager. Marka waqtigaas dib ugu celinaya. Your life would not have turned out the way it has if you had not taught yourself how to speak English. How did you learn English in Somalia? Your life would not have turned out if you had not taught yourself how to speak English. Halkan wuxuu ku yidhi your life noloshaadu would not have turned out may isu bedesheen may noqoteen sidan ay iminka tahay haddii if you had not taught yourself haddaan naftaada bari lahayn sida Ingiriishta loogu hadlo how to speak English. How did you learn English in Somalia? Sidaad ku baratay Ingiriishta Soomaaliya gudaheeda markaad joogtay sidaad ku baratay. Marka meeshan waxa cusub waxa ku jira qaybta ah turned out oo loo isticmaalo maxay natiijo resultigaas oo ah weliba mid aan la filayn. What happened something particularly unaccepted. Marka su'aashu qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan muuqaalkana inta igu dhalisay inaan soo qabto soo turjumo waa intan. Yacni halkan wuxuu ku gudbinayaa fariin ah in luqadda Ingiriishtu ay tahay wax aan laga maarmayn oo qofku haddii uu barto yacni noloshiisa wax ku soo daraysa. Runtii adduunkan iminka sidii isu bedelayana way u muuqataa laakiin qasab maaha qofku luqadiisa inuu ka tago. Well, first of all, there was the United States intervention into Somalia. Hadalkiisa wuxuu ku bilaabay markaa isagu first of all oo ah ugu horeyn hadalkan waa lagu bilaabay first of all ugu horeyn ayuu yidhi there was waxa jirtay United States intervention into Somalia inuu Mareykanku gacan kula jiray Soomaaliya ayaa jirtay markaa intervention intuna waxa weeye in dalalka waaweyn ee western countries ama Mareykanka inuu soo farageliyo uu faraha la soo galo
dalalkan markaa Africa oo yiraahdo dhaqaalahan ka taageeraya ama wixii markaa jirtay xagga dambe ku raaciyay isagu wuxuu because of sababtuna waxay ahayd humanitarian crisis dhibaatooyinka bini'aadanimo ayuu doonayay inuu wax ka qabto waa sida abaaraha dhacaya wixii la mid markaa because of the humanitarian crisis. There was a famine and there was wars, but then they, buu ku yidhi waad fahmaysaa soo maaha there was a famine waxaa jirtay gaaja jirtay and there was a war sidoo kale dagaalaa jiray markaa aad u isticmaalay filler words jumlado la yidhaahdo oo ay ka mid tahay oo loo isticmaalo bedelkii aad aamusi lahayd hadal markasta wado oo markaa lagu buuxiyo meelaha aamusnaanta oo micnaheeduna tahay waad fahmaysaa soo maaha taasoo kale weeye the US decided to send over 4,000 troops. USA decided to send over 4,000 troops on the ground. wuxuu yidhi USA Maraykankiina decided wuxuu go'aansaday to send inuu soo diro over in ka badan 4,000 troops 4,000 oo ciidan on the ground oo dhulka u soo diro on the ground, and I was in Mogadishu, very close to the airport where the US had landed at night. So I was in Mogadishu aniguna waxaan ku sugnaa Mogadishu very close to airport aad ayaan ugu dhawaa airportka USA had landed at night wuxuu yidhi Maraykankina wuxuu soo caga dhigtay habeenkii markaa waa ciidanka markaa cirka ayaa u soo degaya dhulka sidoo markaa u sharaxayo landed at night, so to me it was just like a moon landing. It's like the aliens are arriving, right? markaa wuxuu yidhi isagu to me aniga it was just like waxay laahay sidiiba a moon landing in dayixii lagu degayo yacni shock ama yaab ku yaabay markaa it's like waxay ahayd sidiiba aliens are arriving inay imanayaan noole cireedyo soo degayaan aliens waa waxa loo yaqaan in noolo kale yahay oo markaa meerayaasha kale ku nool yahay oo khuraafaadna loo badiyo inta badan And the next couple of days, what happened was like we were next couple of days what happened was like really next couple of days dhowrkii maalmeed ee ku xigtayna what happened was like wixii dhacay wuxuu ahaa sidii intaa waxay noogu eeg qaybtii koobaad insha allah qaybta saddexaad nooga soo samayn doonaa commentiga igula wadaaga haddii qaybta saddexaad bixintii asxaabta